halkani waa RTN. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن داويال من البوان نجا داونيسان كسر هذا برنامج كسويالك نولشة وهذا عن أدوك برتين تلفزيون كRTN حكمتي سدحة مجلة نيروبي أنا جوا انتصار سالو سنة أيانا برنامج كعلبة إذن للسعودية برنامج كوحة عاو مرتي وجوها عبد الرحمن نور علي ومركزي كمدة حزب قاعد نيردا ترن ومركزيه dhalinyaro u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada waa sidoo kale wariye waxa uu ka tirsan yahay bahda warbaahinta waxa uu wax ka qorqoraa arrimaha sidoo kale arrimaha bulshada Ibrahim Maxamed Socdaal ayaa sidoo kale barnaamijka marti igula ah oo caawa igala qayb qaadan doono barnaamijka SOYAALKA NOLOSHA waxa uu sidoo kale asna xubin kan yahay ururka ama xisbiga dhalinyarada taran waxaan barnaamijka uga hadli doonaa guud ahaan dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay caalamka ka joogaan si gaar ah waxaan u eegi doonaa dhacdadii foosha xumeed ee shalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan oo dadkaasi waliba ay u badnaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ah mustaqbalka wadanka oo maanta uu higsan lahaa aan ku bilaabo marka hore عبد الرحمن نور علي عبد الرحمن Sinaxariisleh oo dhanka midig fadhiyo هيا عبد الرحمن kusoo barnaamijka SOYAALKA NOLOSHA iyo telefishinka RTN aad baad u mahadsan tahay walaashay intisaar saalax adiga iyo TV-ga caalamiga ee RTN waliba barnaamijka qaaska ah ee SOYAALKA NOLOSHA aad baad ugu mahadsantahay soo dhawayntaada إبراهيم sidoo kale soo dhaw barnaamijka SOYAALKA NOLOSHA oo caawa aad nasiib u yeelatay inaad runtii nagala qayb qaadato aad baad u mahadsantahay walaal intisaar saalax mid la mid ah aad baan ugu mahad celinayaa waqtiga wanaagsan iyo mataqaan aad nasiiseen waliba waqti waxaan ku jirnaa aad u wanaagsan loo baahan yahay in laga hadlo waxyaabo badan dhalinyarada mataqaan ay saameyn weyn ku soo yeelatay aad baan ugu soo dhawnaa maadaama barnaamijku uu yahay barnaamijka SOYAALKA NOLOSHA horena aan barnaamijyo noocan oo kale oo badan aan u soo sameynay sida caadiga ah barnaamijku waxaan ku bilownaa marka hore qofka horta taariikh ahaan noloshiisa Ibrahim adiga aan kugu bilaabo taariikh ahaan waxbarashadaadii iyo noloshaadii waxaan jeclaan lahayn bal wax yar inaad nooga taabato aad baad u mahadsantahay intisaar saalax anigu runtii Ibrahim Maxamed Xaxayo Socdaal waxaan ku dhashay degmo yiraahdeen Buulamarey ku taala gobolka Shabeellaha Hoose nolosheedu waan ku dhashay mooy halka waxaan ka soo tagay anagu malaha aad u yar waxaan soo galnay Muqdisho nolosheedu waxbarashada ilaa heerka dugsiga iskuulka dhexe sare waxaan ku soo qaatay Muqdisho gaar ahaan iskuul ay dhihi jireen Khadija bin Khuwaylid ee ku yaalo degmada Dharkeenley halkaas oo aan ugu dambeyntii kaga biiray jaamacadda Muqdisho aan kaga soo qaatay waxbarashadeedii heerka mataqaana jaamacadeed alxamdulillah kadibna waxaan soo wareegay waa qurbahan aan mataqaana aan soo galay inta baan ku soo qaatay waqtigii waxbarashada imankan aan ku noolahay Kenya waxaan ka mid nahay dhalinyarada hadda sidaan sheegtay mataqaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarta wacyigelintooda waxbarashadooda sida mataqaana in jiilka naga dambeeya inaga nagu tusaale qaadan lahayn aan mataqaana iska diyaarin dhan walba hadii ahaato mataqaana waxbarashadeena leen waxa waa jiil walba jiilkiisa ayaa bedela marka welina waxa weeye howlo badan ay horyaal gaar ahaan ka dhalinyarteena waa ka taariikhdeena halka mataqaana ku koonta su'aashaas mid lamid ah Cabdiraxmaan Sinaxariisleh ayaan siin lahaa waa mahadsantahay intisaar markii la yiraahdo SOYAALKA NOLOSHA waxay qayb ka noqonaysaa CV-gaaga inaad dib
u jaleecdo ama aad dib ugu noqoto adoo ka sheekeynaya taariikhdaada waxbarashadaada akademiga meelaha aad ku soo qaadatay heerka digriga aad taagan tahay hadda waxaad ku sugan tahay bulshada waxa ay kaaga faa'iiday waxaad adiga ka faa'iideysatay dabcan meel waan iska leenahay oo maxaa yiraahdaa bahwadaag ama arday wadaag markaan dhahno waxaan ku faraxsanahay horumarka aad samaysay adigoo ah gabar aad u furfuran u firfircoon misna haddana aan isku fasal ahayn xagga waxbarashada qaybta saxaafadda mass communicationka oo heerka diblomada aan ka wada sameynay taas kaaga sheekeyn maayo waa midaan aniga adiga aan bahwadaag ku ahayn galaaska taa markii laga soo gudbo kadib waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ii suurageliyey inaan diyaariyo qaybta siyaasadda degree-gayga oo afka qalaad lagu yiraahdo international relation and diplomacy iyada marka aan ka soo wareego maxaa la yiraahdaa waxaan diyaariyay koorsooyin badan oo ma garanaysaa degree-ga kadib ah oo uga faa'iideysanayo sida dhanka technographic wax la yiraahdaa jira dunida waa tan maantay wax aan taaganahay isbedelka sameynaya hadda laftirkeeda sida media aad arkaysid iyo dhalada hortaala wax ka qabad uga baahan oo ma garanaysaa xagaha editing markii la dhaho webmaker-nimo markii la dhaho graphic markii la dhaho curinta digital media markii la dhaho waxaas oo dhan waxaa la isku yiraahdaa technograph iyo multimedia la isku yiraahdaa kuwaas oo aan xooga saaray anoo hami u haya ama aan uga faa'iideysanayo tu alle igu dhaliyay ee ah khibradda hal abuurka iyo qorista marka waxaan ka diyaariyay xagga sharciyada diyaarinta doorashooyinka ka qayb qaadashada hab hagaajinta website-yada ma garanaysaa ilaa iyo in badan haatana aan jeclahay inaan u faa'iideeyo walaalahay ila midka ah ma garanaysaa iyagu aanan fursadaasi u helin inay kaga faa'iideystaan aqoontooda oo aan macad saxaafadeed ma garanaysaa markaasi aan waxbarashada cilmiga saxaafadda aan u bandhigoon aan ma garanaysaa buuggayga ahaa cilmiga barashada saxaafadda aan uga faa'iideeyo marka arday badan aan qayb ka siiyo wahagaag markaan u imaano si gaar ah dhalinyarada Soomaaliyeed runtii dhibaatooyin fara badan ayaa haysto haddii ay dalka ku sugan yihiin iyo haddii ay dibadda joogaanba oo ay dalkii ka soo tagaan waxayna la kulmaan dhibaatooyin runtii aad u fara badan shalay dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho dadka ay saameysay inta badan waa dhalinyaro inkastoo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay wada saameysay dhacdadaasi runtii haddii la isdhahaa xataa qoys oo Muqdisho ku dhaqan yani qof kamida waxba ma gaarin haddii la dhaho xataa yani waxaan la rumaysan karin waa reer walba waxaad u malaynaysaa maanta in ama ay tacsi u taalo ama uu qof ka dhaawacan yahay inta ugu badanna runtii dhibaatooyinkaas inkastoo dadka ay wada siman yihiin ay shacab Soomaaliyeed oo muhiim mar walba ay yihiin haddana inta ugu badan dadku wax noqday ama dhibaatada ay inta badan saameysay waa dhalinyaro bal adiga sinaxariis ahaan ka ahaan dhibaatooyinkii shala dhacay bal muuqaalka adiga yani maskaxdaada ay yani sawiratay muxuu ahaa saaka aroornimadii markii aan ka soo kacay ilaa iyo xalay ma garanaysaa xilligii dhexe ma garanaysaa dhibaatadu markay dhacday kadib ilaa iyo hadda waxaan aad ma garanaysaa u boosti gareynaya ama aan ku dhex jiray social media ha ahaatee ma garanaysaa Facebooka ama Twitterka in waliba aan ku badanahay Facebooka markaasina xanuunka aan la qaybsanayay walaalahay iyo saameynta dhibaatooyinka ka dhacday ah oo ma garanaysaa isaameeynayay sida hadda aad ka aragtid waxaad u jeedaa dadkii oo ku dhaxoolan hotelkii kuwii ku dumay ee laga dhex saarayo waxaad arkaysaa dadkii oo ayaga laftirkoodii argagax ku dhacay waxaan markii la fiiriyo waxay noqonaysaa arrimo siyaasadeed bay isku bedelaysaa oo way ka weynaanaysaa arrin ay Soomaalidu lug leedahay waayo waxaad dareemaysaa gaari ina tree ah in lagu soo xamuulo ama lagu soo qaado waxyaabaha qarxa
taasi oo aanan weli ka dhicin burburkii Soomaaliya sidii ma garatay qaraxyadu u saameyn jireen Soomaaliya burburkii kadib laga bilaabo markii ay bilaabatay 2006 Soomaaliya markaas bay la kowsatay inuu qarax ka dhaco xilligaas ilaa iyo hadda qaraxan waa qaraxii ugu saameynta badnaa ilaa tira dad inay ku dhintaan ay gaarto 237 ruux halka 130 iyo jajab aan la garanaynin haybta dadka marka aan leeyahay kama wado qabiilka dadka laakiin suurad ahaan in la kala garan waayo yani qofka uu dhashay in la cadeyn waayo qofka uu yahay jinsiyad soo u gubtay iyo soo u burburay sidii madaxyadu iyo lugaha ay u kala maqan yihiin tirkoobka saxda ah ma sheegi karo laakiin hadda sida la iswarhayo ee la dhahayo tirada inta ay gaarayso waa 137 ilaa iyo 130 iyo jajab meesha gaaraysa saameynta marka aragtid waxa lagu eedeyn karaa laba siyaabood mid waxay noqon kartaa faragelin siyaasadeed oo ma garanaysaa xagga eedeynta waan u imaan doonaa waxaan rabaa dareenkaaga yani waxa marka ay dhaceen dhibaatadaas markay dhacday yani dareenkaaga yani waxa dareentay oo dhabta ah inaad nala wadaagto aad muuqaal naga siiso dareenkaaga horta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waan u tacsiinaya intii nafku ku weysay dadka ugu xanuunka badan leh ee dareenka imujinaysa waxa kamid ah Cabduqaadir Daahiye oo ahaa siyaasi oo mutaqaana wax garad ah ku dhex jiray dhalinyarada markuu Nairobi imaado ahaa raggii aan wada kulmeynay ma garanaysaa oo saameynta igu lahaa baraarujinta xagga siyaasadda waxaad garanaysaa 30 dhalinyaro oo arday ah oo gaarigii soo qaaday hal mar meeshuu ka baxay iyo la garan waayay saameynta inta la eg afar wada dhalatay ee hal meel ku jirta ee dhalinyaro ah ee wiilal ah ee wada xisaabaya dukaankoodii iyo hawshoodii iyagoo ku howlan ku habsaday qaraxii hooyada da'da ah oo afarta wiil hal mar ka tagtay qiyaas maxaa dareemaysaa waxay noqonaysaa murugo aad u dheer oo u baahsan oo dhibaato saameynta aan laga kaban karin ah dhanka kale marka aad tiirisid ardaydii ma garanaysaa ayagana jaamacadaha oo inta lagu soo dadaalay waalidkooda juhdiga ku bixinayeen ma garanaysaa intaasna ahaa uu wixii wadanka u soo baxay waalidka marka laga soo tago dalkii dadkii wax u qaban lahaa ah oo ayagiina ku nafwaay tan waxaan ku tilmaami karaa inay tahay masiibo qaran oo dalka ka dhacday si markii loo fiiriyana waxaan ku tilmaami karaa dambi aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa ka geysanay in laka jaasinayo oo aan u baahanahay inaan Allah subhanahu wa ta'ala u noqono bariyatuub aan la imaano inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf weydiisano waayo arintan waxay noqonaysaa arin aad iyo aad saameyn weyn u leh haddana laga gaashaamanin mid ka daran laga yaabay inay dhacdo waxaan siinayaa Ibrahim dhalinyarada inta horta ugu badan shalay dhibaatada gaartay inkastoo dadku aysan kala yareen haddana waxa ugu badan waxa waaye dhalinyaro xataa waxa jira dad qaarkood familkoodii aan ka warqabin oo cisbitaalada ku jiro oo la naadinayo la leeyahay war dadkaas hadaad aragtaan sida maanta social media aad ku arkayso oo kale magacyadooda inta la soo dhigo la leeyahay dadkii bal ha lagu raadiyo arintaasi dhalinyarada Soomaaliyeed maxay yani ku abuuri kartaa horta aad u mahadsan tahay waxa ka dhacay shalay Soobe ma Muqdisho gaar ahaan waxa arin aad u foolxun ruux walba oo ka dambeeyay ama ahaado cadow ku maqan dibadda banaankiisa ama ku jiro gudaha wadanka waxa meesha ku baaba'ay horta waa shacab maataa ama waxba galabsan waliba ku mashquulsana nolol maalmeedkooda waliba ahayd xilli aad u mashquul badan wadada waa mataqaana bar control oo gawaaridu ka baxaan waa meel business ah mataqaana dadku galabtii isku yimaadaan mataqaana dadku ay ka shaqeeyaan ninkii ama kooxdii ama soo fikirtay oo meesha wax inta dhigtay gaari inta la eg mataqaana rabto inay halaagto waxaan dhihi lahaa anuu kuwa haddii awoodaan Soomaaliya min degmo ilaa tuulo hal mar bay wada qarxi lahaayeen ama hal mar bay wada halaagi lahaayeen laakiin intaa buu Ilaah ku koobay waxaan dhihi lahaa ilaahow adag joojo qofkii falka geystay ka soo dhaxsar umada inta dhimatana waxaan dhihi lahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahu naxariiso oo jannada firdawsa ilaahu ka waraabi inta dhaawacana ilaahu ma taqaana caafimaad la kawsi
midda kale meesha wax ku baabaa istaan sheegay waa shacab maanta waxba galabsan waliba waxa u sii badnaa dad dhalinyaro ah dad dhalinyaro maanta saagiyaan waxaan ku dhihi lahaa hal iyo laba magacooda waana dadan aqaano ma taqaana in dhigto jaamacadaha muqdisho gaar ahaan rag baa jira aan aqaano oo isku ma taqaana aan jirnay in meel wada soo joognay oo wada nooleen ugu dambeysay 5 bari ka hor aan Facebook ka chat gareynay imagine maanta caawa godka bay u heday qarkood dagaarlaa midkood ma taqaana ujeedada meesha ku go'een wada dhalinyaro ah wixii wadanka bedeli lahaa wadanka ma taqaana ilan shalow markuu wadanka ma taqaana gumeysigu ku jiray dhalinyaro baa ma taqaana isxilqaato wadanka bedeshay ahayd hami mid la mid ah ayay wateen dhalinyarta waxba wadanka gudihii xaaladda wax ku baranayay muddo soo joog u taagnaa in sidaadan loo gala dan waxay lag tahay qolooyinka sida wax yeela mala waxay damacsan yihiin inay dabargooyaan kaliya fikradda ama rajo walba dhalinyartu leedahay wadanka inay wax ka qabtaan marka waan kaga tacsiinaa shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad baan waxaan u baraarujinayaa dawladda Soomaaliya gaar ahaan qolooyinka qaabilsan ammaanka inay ma taqaana aad ula socdaan dhaqdhaqaaqa in shacabka iyo ammaankoodna ay suurtageliyaan in si degdeg u jawaabaan waxyaabaha meesha falxumada ka dhacay qoys ayaga ma taqaana qaabilsan ammaanka wadanka ayaga qaabilsan duty ma taqaana inay la socdaan in shacabka iyo xaaladooda xaalad bay ku jiraan ammaankooda marka aad baan ugu xumahay dareenkayga wax la qiyaasi karo maahan ka ahaan inaga wariya ama maadaama aan saxaafadu gacmihii waxa lagu qaban waayay inaan wax ka qoro qoys markaad aragtid ma taqaana ummaddu markaad fiirisay sawirada la soo dhigay ma taqaana baraha bulshada gaar ahaan Facebook waad dareemi kartaa adigoo ruux muwaadin Soomaali ah misna ma taqaana kow sawirkaad wax ka qori lahayd waxaad fiiri kartaa maaha muruga dartii qalinkaadu ma taqaana warqadaas isqaw mayso markan waxaan dhihi lahaa si wili waqti baan lahaysan wili rajo baan leenahay shan hadee gooda waxa taagan wili shan lamid ah waxaan dhihi lahaa yaa la nid jabin hore ha loo socoto tan waxay soo dedejin doontaa qaraxan dhacay shalay midnimada iyo ma taqaana inaan gacmaha soo wada qabsan hadaan shacabka Soomaaliyeed ama gaar ahaan dhalinyarta waxba dib u laabamayno wax walba cabsi gelin cadow damacsiyihiin ha anagu soo dhuntaan qaab diin ha nagu soo dhuntaan qaab dawladda kale inagu waxaan diyaar u nahay ruuxi maanta naga baxa ruux kale baa ma taqaana meesha imaan doona hawshan halka bay ka socon doontaa darag baa naga tago ma taqaana 13 dhalinyaro wadankan soo gaarsiiyay ma taqaana xornimo inta soo gaarsiiyay wayna dhintaan laba naxariisto bedelkii rag kala soo galanire ah markii inagu waan taaganahay waan si taagnaan doonaa inta naga dambeysay waxa way si taagnaan doonaan marka aadan ugu xumahay dhacdada foolxumo shalay ku dhacday halka marka aadan uga tacsiinaya waad mahadsantahay Ibrahim waxaad xusuusisay horta dhalinyaro fara badan ayaa social media runtii aad u isticmaasho waxaana jiray xalay ilaa saakay dhalinyaro runtii qaar isticmaalaya muuqaalada dadkii dhibaatooyinka ay ku dhaceen oo kale ama dad hilbahoodii ay go'een taas laftirkeeda waxay argagax ku abuuri kartaa dadka markaasi wadanka ku nool ama banaanka jiro sidoo kale waxay ay xanuun ku reebi kartaa ehelada qofka imagine maanta markaad aragto qof walaalka ah ama waalidka oo social media la wada wuu dhintay qofkii dhibaatadii way ku dhacday haddana markii la sii wadwado qofka aad muuqaaladiisii aad aragtay aad ay ku xanuujinaysaa marka anoo kaga faa'iideysanayo xusuusintaada dhalinyarada barnaamijka daawanayso ee social media isticmaasho waxaan ka codsan lahaa in ay mar walba ka fogaadaan muuqaalada runtii midba midka kale uu ka xanuun badan yahay oo ay dadka la wadaagayaan taasoo xanuun kale sii gelinayso ama rajo xumo sii gelinayso dadka kale qofka dhintay wuu dhintay waqtigiisa ayaa halkaas ku ekaa cidna ma celin karto qof walba waxa uu ku dhimanayo ilaah baa u qadaray sababtu ku dhimanayo iyo saacadu dhimanayo iyo meeshuu ku dhimanayo iyo sida uu dhimanayo marka qofkii oo dhintay oo qabri la gelinayo maanta haddana inaad jirkiisii oo gogo qaaban inaad sii wadwadid xoogaa bini'aadanimada ma u fiicno dhalinyarada barnaamijka daawaneysana runtii ee Facebook aad u isticmaalayso runtii waxaan ugu baaqi lahaa inay arintaasi ay aad uga fogaadaan dadkana ay ku sii xanuujin dhibaatada ehel ahaan markaasi ugu dhacday aan u imaano marka dhibaatooyinka dhalinyarada ku dhaqan qurbaha gaar ahaan dalkani Kenya oo aad joogtaan runtii aad isku hilqaamteen inkoo dhalinyaro ah inaad mas'uuliyad is saartaan oo aad xisbi samaysataan oo aad dhalinyaradii u orodaan oo waxa wadankii waxa aad u barataan oo waqtigiina ka faa'iideysataan si naxariis la ayaan siinayaa markan nolosha dhalinyarada ku dhaqan dalkani Kenya sida ay tahay iyo waliba dhibaatooyinka dhalinyarada haysta
ee Soomaaliyeed gaar ahaan intaar intaanan qodobkaasi ka hadlin wax yar waxaan rabaa hadalkeena inaan ku biiriyo oo aan sheego Soomaaliya hadda maanta waxay ayaga dhan isku wada bedeleen ha noqoto dhalinyaro ha noqoto mataqaana dhexaadka dad wada wariye ah ama dad wada soo gudbiye ah qaybta wariyahana markii la fiiriyo markii dunida kale ay ka dhacdo masaa'ib noocan oo kale ah wariyaal waxa jira oo carboon u diyaarsan oo soo tabiya loogu talagalay inay masaa'ibta kaliya ay soo tabiyaan ayaga oo raacaya habraaca xuquuqda bini'aadanka marka loo eegayo taasi oo mudnaanta siinaysa qaabka sawirka loo qaadayo qaabka loo soo gudbinayo masaa'ibtii qaabkii dunida loola wadaagi lahaa ayadana habraacaasi aad u malaysid inay wariyaasheen Soomaaliyeed oo ma garanaysaa ay wax yar ka gaabiyeen oo dhankaasi aysan ku jirin waayo qofku wuxuu rabaa maalin kasto inuu waaqicigii jiray iyo wixii jiray inuu soo tabiyo laakiin uusan ku fakirin berri haday dalkani ka dhacdo dhul gariir ama ay ka dhacdo mataqaana masaa'ib noocaas oo kale ah wariyaal Soomaaliyeed oo u tababaran oo u diyaarsan inay masaa'ibta soo galiyaan wariyaasha markii la dhaho waxay u kala badan yihiin qayb environmental ah ama qaybta bii'ada soo tabiso qaybta science-ka qaybta agriculture-ka intaasi ma garanaysaa beeraha ay kulli isugu wada jiraan iyadoo taasi ay mudnaanta ku wanaagsanaan lahayd maanta masaa'ibtii dhacay inay si wanaagsan u soo gudbiyaan waxaad arkaysaa UNESCO markii ay sameynaysay ma garanaysaa tirakoobka markii ay sameynaysay Soomaaliya waxay ku tilmaamtay 70% inuu dalka yahay dad dhalinyaro ah saa ay tahay dalka waxaa ku laabtay 100% markii la fiiriyo 10% ilaa 15% dhalinyaro qurba jooga dalka ku laabatay dhalinyaradii qurba joogta dadka ku laabatay waxay geeyeen meeshii investment ay geliyeen dalkii dhaqaale gashi ku sameeyeen dalkii dhaqaale gashi markii ay ku sameeyeen meeshii dalkii waxay tusayeen inuu dalka ahayn ma garanaysaa dal bahla galeena ah dal laga kala qaxay dal aanan isku soo noqod lahayn dhalinyaradii baa maanta loogu talagalay in niyada laga jabiyo kuwaasoo la carqaladeeyo meeshay bulshada Soomaaliyeed u badan tahay in la bartilmaamaysto kadibna dhibaatadan iyo saameynkan laga geysto dhalinyarada waxaa kamid ah dadka hadda qasaaraha qaybta ka soo gaaray ma garanaysaa diasporada ah ee wadanka inta ka tagay wadankii ku laabtay ee investment ku sameeyay dhalinyaro carboon oo da'deen oo kale ah oo yar yar oo xagga xataa akhlaaqda iyo social media sharaf ku leh wanaagsan si positive dalkooda wax ugu qabanay soo gudbinay sida hadda company-gan tusaale markaan ku soo qaato walaalkay Maxamed Minnimo oo kale company-giisa ee Daa'us oo kale oo shalay qayb ka ahaa soo gaaray ma garanaysaa soo gaaray qaraxii saameyntiisii soo gaaray waxa kale oo arkaysaa qaybta kale barnaamijka horumarinta ma garanaysaa oo asagana xafiiskiisii dhan wada bedelmay barnaamijka horumarinta shirkadda Hormuud dhalinyaradii u qaabilsaneyd oo ku jirtay dadkii dhisayeen bilicda qurxoon ee deegaanka hadda laga sameeyay Dar es Salaam laga sameeyay aha dabaqyadii qurquruxda badnaa ee hadda hab abuurka koowaad loo sameeyay Soomaaliya sidii isteediyada hadda wadankan aan joogno kale oo ay kamid yihiin South C South B meelahaas oo kale sida ay u qurux badan yihiin oo laga dhisay dhismooyinkaas oo kale raggii sameynayay saameyntii soo gaartay waxaad arkaysaa marka saameyntan laga sameynayo waxaan anagu koow hore saameyntu naga soo gaartay culimada la beegsaday culimadii markii dilkoodii la beegsaday majaajilistayaashii lagu xijiyay majaajilistayaashii markii la sii dilay haddana wariyaashii lagu xijiyay wariyaashii laga soo baxay shalay bulshada Soomaaliyeed markii culimada la dilay waxay dhahayeen culimada ayaga gacan dheeraaday markii haddana la dilayay majaajilistayaashii waxa la dhihi jiray siyaasadii ay qoorta la galeen wariyaashii markii la dilayay waxay bulshada Soomaaliyeed dhahayeen ayaga af dheer wariyaasha maanta shacabka Soomaaliyeed loo soo dhigtay ninka dhaqaalaha yar lagu taminanaaya la dilaya ninka Muqdisho ganacsiga dhaqdhaqaaqa ka sameynay iyo horumarka ka sameynay iyo bulshadii meesha isugu imaado ay waxtarka iyo isdhexgalka ay ka sameynaysaa qarax la beegsanaya marka ma la isdhihi karaa ma garanaysaa dadka shalay aaminsanaa in wariyaasha iyo culimada iyo majaajiliistada kaliya u haystay in dadka ay ku koobnaayeen dilkoodii la dilay maanta ayagay soo gaartay maxaana la gudboon ma kula tahay bulshada Soomaaliyeed inay u diyaarsan yihiin qofka saameynta noocan oo kala sameynaya markay arkaan inay dawladda saaxiib ka dhigtaan oo ay u soo gudbiyaan qofka dhibaatada ka wada
because of waxa la rabaa dunida in aan isticmaalno wax logic ah aqli ah dunida markii waxa lagu sheegay aad qaadan kartid wax qayru caadil ah inaad qaadatid ama lagaaga sheekay wax suuragal ma aha hal gaari ina tray ah inta laga rarayo Muqdisho waa tagtay qayb baad ka tahay markaad ogaatid ama aad dalxiiska ku tagto ama aad booqashada ku tagto ama aad shaqada ku tagto inta saar waad arkaysaa inta isdhexgalka dadka ay wadaan ciidamada dawladda ma garanaysaa inta ay howlgalka ka wadaan markaad si inventory markaad u socotid saameynta aad kala kulmaysid wadooyinka say u kala xiran yihiin siday ku suuragali kartaa iyadoo saa ay mashquul u tahay oo ciidamada ay ku hoolsan yihiin ammaanka ilaalintiisa in gaari dhan la raro loo diyaariyo la wado goobtii dadka bulshada ay ku badnaayeen la geeyo laguma eedeyn karo dawladda laakiin waxa lagu eedeyn karaa shacabka ku nool ma garanaysaa degmada ku nool because of ayagu uma diyaarsana inay feejignaan dheer qaataan waayo dawladda ma aha dadka hadda baaba'aya dawladda waa dad yar oo xubin ah taasoo la isma dhihi karo shaqadaasi waxay tahay shaqada dawladda inkastoo shaqada ciidamada nabad sugidda shacabka laftirkooda ma haystaan yani kalsooni ama damaanad qaad haddii waxa laga yaabaa qofka haddii xataa hadduu arka xataa uu qofka sheegi lahaa inuu naftiisa u baqo isdhaho war amaa lagu dilaa dadka aysan xataa qaarkood confidence badan ama kalsooni badan aysan ka haysan kala shacabka waa dad markasta noloshooda yani waxay ku mashquulsan yihiin nolol maalmoodkooda waxa laga yaabaa waxa ku xeeran ama gurigaaga dhabarkiisa xataa wax laga sameeyaa inaadan la socon oo aad la tacaalaysid yani noloshaadii nolol waxaad aragtaa oo Soomaali ay dhahdaa duduma god korore god ugal maamaahidi ahayd macnaha inaad abayso ka ordo oo aad god u gasho haddii maanta aad tiraahdo ninkan saameynta wada iyo dhibaatada wada waan ka cabsanayaa anoo nafsadeedu u baqayo markuu qaraxa sameynayo kii iga xishoonayay iga baqaya ama aanan sheegayn way intuu ku dhow marka leexana waa maya saameynta adigu way ku gaaraysaa maadaama laba goor ahaan hadaad dhimanayso Soomaali waxay tiraahdaa hadaad dhimanayso dhereerka la iska tiraa geesinimo u dhimo dalkaaga adoo u dagaalamayo u dhimo waxaad u dhimataa geesinimo iyo xurriyad iyo sharaf sababtoo ah ani hadaanan maanta ogolaanin inaan intisaar madaxeeda u dhinto oo ma garanaysaa iyada say nolol ku helay Ibrahim soo nolol ku helay hadaanan aniga isku biimeenin oo noloshaas aanan gaarin sidee idinka ku noolaanaysaan waa su'aal meesha taalo laakiin Cabdiraxmaan midna ku darso shacabka waxa laga yaabaa in sidaan hore kuugu sheegay qofka markuu qof iska yahay normal oo aan dawladna shaqo ku lahayn noloshiisa caadiga bursado waxyaabo badan inuusan yani ku xeeran uusan dareemi karin laakiin laguma eedeyn karo yani eedeyntaasi shacabka dusha lagama saari karo hawshaasi haddii xataa ay timaado intisaar waxa dusha loogu saari karan ku sheegaya dawladdu ma aha waxa hadda la bartilmaameysanayo sababtoo dawladdu waa la yaqaanaa xarun bay joogtaa inta xaruntoodii loogu tago ma qarax loogu geysto waa maya waxa la leynayay yaa waay shalay waxa meesha ku dhacay aan xisaabino imisa dawladda ahayd oo burburki saameeyay imisa shacabka ah oo burburki saameeyay haddii afar jibaar la sameeyo xataa hal qayb kama noqonayso inta dhimatay ee shacabka ahayd iyo inta dawladda mas'uuliyiinta ka ahaa marka ma waxay kula wanaagsan tahay inaad ka fariisato tiraahdo qaraxan waxa loogu talagalay wuxuu ahaa ma garanaysa dawladdu ahaa shacabkiina meesha uu ku baaba'ay waxa lagu leeyahay 237 marka la fiiriyo 37 ma dhama dawladda inta kaga dhimatay 200 iyo ka badan iyo maazada oo ka sii dheer waxa ku dhintay shacabka saa u baaba'aya hantidooda ku burburaysa maalin kasta ayaga la daba taagan yahay ma garan waayeen inay ayagu inta is abaabulaan oo ay yiraahdaan annaga intaan kadib dib noogu filan 30 sano aa lagu jiraa Soomaaliya burburkiyaan ani dhashay maanta ana wax dhalay ana ka qoostay rajo Soomaaliyeed iyo ma garanaysaa inaan maanta dalkii ha ku dhalan ama ku dhalo waxay rabtaa ha ahaato laakiin maanta dalka waadan mid aanan hureynin inaad tagto waa ka rajabeeshay waa ka tagtay maxaa kugu qasbay 30 sano anaga dhexdeena is burburinaynay isla dagaalsanayna ama qansax ama qurac isku dilayna waaye qansax iyo qurac maanta waa laga soo tagay maanta waxay taagan tahay adiga ama qansax ahaw ama qurac ahaw adoo meesha joogto in hawada lagu la kaco subax marka aad ka soo bixisid gurigaaga hadda waxa la marayaa inaad dardaaranti tiraahdo hadaan soo noqonin deynka ha laga bixiyo Cabdiraxmaan wax yar oo kugu soo noqon doona waxaan rabaa saaxiibka inaan fikirkaaga bal inuu kula qabo in kale inaan ogaado in yani
cabdiraxmaan saa maqlaysay wuxuu culays ka saaray ama uu yani eeda saaray in shacabka ay yihiin eeda shacabka ma iskale mise waxaa iskale qolada amniga ku shaqalada leh ee markaasi dowladda ama qolada nabad sugidda anu waxaan dhihi lahaa shacabku waa shacab inta xun inta sama horta inta xun baa aad u yar bulshaduna sideeda waxaa fiican shacabka naftigiisu inuu iska soo dhex saaro laakiin arrimo jira awgeed shacabka kuma dhiiroodo badanaa waa sidaad sheegtay dadku waa dad mataqaana nolol maalmeed la dagaalama qof baa maamaha subaxda inta baxday ciyaarkeeda mataqaana suuqa u gelaysaa aabbaa laga yaaba inuu ciyaarkii hadduu shaqeeyo waayo badana wuu baxayaa mataqaana wuxuu tegayaa iskuulada macallin weeye ama ganacsata weeye ama qaarkood ma shaqeeyaan fargudarada iska joogaan kama warhayaan laakiin in yar baa jirto qaswada ah oo doonaya waddanka iyo inuusan deginba ka faa'iidaysto habeenii maalin u soo jeeda in ka badan dhihi lahaa siday usoo jeedaan dowladdu waayo ilihii dowladda qaabilsana ammaanka baa laga baahan yahay mataqaana inay shacabku mataqaana ayagaa ka madaxa ilan ayagaa dowladdu ah waxa lagu taagan yahay waa dowladdu iyadaa loo baahan inay mataqaana ammaanku damaanad qaado wax walbo jira shacabkii inay soo jiidato waayo anu markaan maanta information gudbiyaa yaan u gudbiyaa yaase ka gudbiyaa kow waxna cabsanaya haddaan ku noolahay muqdisho maanta haddii aan iraahdo information aan meel ka soo qaado qof u geeyo qofkan hadduu wato raiiska dowladda duwata ama xafiis dowladda fadhiya anuu kuma dhiiran karo waayo biri markaan soo laabto isla markii markaan information soo gudbaan soo laabto waxaan ka baqayaa ninkaan laga yaabo in qofka lagu dabo mataqaanada qabta hebla by the way arrinta ka dhacday mataqaana shalay la ii sheegay arrintii qaraxi hotelka ka dhacday hotelka magaciisa safari waxaa la ii sheegay safari beegsashada lala beegsaday waa arrin ka weyn qaraxa xadoo shacabka lagu laayo koox baa jirta kooxdaasoo dadka ku haysatay waxaa la yidhahdaa yako يعني محلي جري حرام كويسة كوز إن حرام والبو أما بيزنس والبو كويا لا حمر دولته تكزيشن وحير هذه متقنة الدنيا أنجونا حال استعمال تكزيشن من ريفينيو حشورها لقى السوق هذا جن عستدا سيدا كمبنيها شواوين سمعنا كرن مرك جروب كفوضى ذا سمية بأيقون وحي عشور كقطعان جن عستدا أما متقنة حرمها إن هوتيل هذا أما نرانو كمبنيها يعني يا ولا جدا وجروب كان قانون الدولة والدجال وين كلا حسن ليه كرا إن مدي كلام متقنة وودن قادي جر لبتو بلايد وكذا عدم متقنة الشركة يعني ليه لا أنو إن كو بحس ما يجريو إن بيلدين كا حرون تاجنا عسيبو وحكوا خاص بين ديوان العاق غار كمبنية قروي ديوان أيقو أبقى يو أريمه هذا جنا عسيكا أيقو أبقى نفس الدولة أيقو أبقى متقنة إن waxaa ka dambeeyay dhibaato ka soo gaari karta qaarna way ku adkeeyaan tusaale dad baa ii sheegay xogagaal ah waliba hotelka dadka ma taqaanaa meelaha badan joogo xamar in muddo jooga wuxuu leeyahay in hotelkii ama ma taqaanaa meelihii qaar markay ku soo dabcan in lacagtu dhibaan ama ma taqaanaa lacagihii ku soo aaday qoondada bisha ama sanadka haday dibi baayaan waxaa lagu hanjabaa mataqaanaa in la haligayo waa sida ka dhacday shalay dhibtu mataqaanaa weyn ka dhacday shalay loo halaago ummaddu targetna badana wuxuu ahaa hotelka iyo mataqaanaa wixii eerida shacab u galaaftay marka in waxaan dhihi lahaa shacabka naftirkoodu ilaa xad kalsooni iyo mataqaanaa iyo hasiyaan dowladoodu waayo maanta waa dowladda kaliya la aqoonsiyan waddanka ka jirta aan dhihi karnaa waa iirsha kaliya rajada maanta aan haysanaa waddanka mataqaanaa doonayna in hor u kacdo ayaan doonayn by the way mid kale rabo inaan ku darso waxay tahay dhalinyartuna eed weyn bay halkaa mataqaanaa waddanka burburitaankiisu eed weyn baa ka soo gaartay dhaliilo way jiraan dhalinyarta loo soo jeediyo anigu waxaan ka mid ahaa 2014 ilaa hadda dhaqdhaqaaqa mataqaana u dooda dhalinyarta waxaan soo maray wadamo badan ay dhalinyartu ku nool yihiin waxaan soo maray waddan ay yiraahdeen Thailand 2014 waxaan soo maray South Africa waxaan soo maray Angola waxaan soo maray Indonesia Malaysia intaaba idin leh mar alla markaan tagay waxaan sameyn jiray waxay yiraahdeen mataqaana kulanka isbarashada dhalinyarta isxog wareysiga mid baa aad igu leeyahay badnaa habeen umartiyay telefonkiisu ninkaasu ma damo telefonkiisu ninkaasu ma damo silent ma koro badii ana sometimes telefonada silent iska saarna mataqaana waxa waay waan ka yaraa mashquul am telefonkiina iska dama dab la'aan mid baan wareysto dhalinyaro ah ma taqaana in dhalinyaro waxa weeye wadankii ka soo tago halka
malaha aduu mataqaana qaxooti yar ka sugaya aduu mataqaana qaxootiyo ka sugaya rajulay inuu meelaha kale ka sii aado waa nin ka soo qoostay mataqaana dhulkii hooyo waa nin dhalinyaro hamigiisu hadduu noocan yahay kuu sheegaya hadduu yahay maxaad moodaa dhalinyarta kale mataqaana qurbaha ku nool waa sidii maxay aaminsan ninkaaba waxaan wareystay hor telefonkaad muxuu la dami laaya anuu kay sometimes ugu damaa dadku way isoo ay complain gareeyaan kaaga muxuu dami laaya markaa wuxuu Ibrahim ma ogtahay nin waxaan ku jiraa 2 sano qaxootigaasoo mararka qaarkood way ku soo wacayaan haddii aad ka qaba weyso telefonka aad ka qaba weyso waxa laga yaabaa waqti ay ku soo waceen 6 bil kadib inay ku soo wacaan janska ku dhaafo taas baan u sartaa sokon markaa waxaan weydiiyay bal ka waran rajada wadanka mataqaana aad ka leedahay inaad ku laabto bari bartamba ma waxa rabtaa halkan aad si joogto ma waxa rabtaa inaad wadanka u noqoto waa sidee mataqaana waxa ay xooggaadii aqoontaada wadanka u geeyay markaa wuxuu leeyahay anigu Ibrahim wadanka uma socdo haddaan meel tagane familku idil baa ka soo waran aan ka soo rarayaa idinaga 50 years wadankaas ma booqanayo markaa wadan wuxuu leeyahay inuu maalmahan meesha soo bixiyay UN-ka qaxootiga qolooyinka qaabilsan qaxootiga UN Soomaal maxaa dhacay waxay ku soo celiyay iyo maalmahan mataqaana social media idaacado badan ma soo dhigaan xamar wax dhibaato kama dhacdo oo Soomaaliya markii dhibaatada ay dhacdo wuxuu aaminsan yahay in process loo fududaanayo waxaa la joogay hadalka markaan weydiiyay 10 days kadib baa xamar qaraxyo ka dhaceen aad looga baabay markaa baa ninkii farxadii hambaliyo intuu mataqaana deegaanka waxa meeshan ka hadlayo waa Thailand dhalinyarto dhan bay isku hambaleenayaan isbuucaasu waxaa la soo wacay intaas qof ayaa interview ka loola sameyn doona kaas wadankii uu halaysan yahay wala jira waayo in qolooyinkan mataqaana UN-ku every day report bay kala mataqaana Soomaaliya wax ka socdo wala soo gudbiya badii ka warayaan marka qofka meesha ku nool qaxootigu duruufta shal uu kaga soo wadankiisa uu sheegay waxay markaad ka cadeynaysaa in wixii wali dhibtay taagan tahay qofkii waa qorsiis kula fuday marka waxa jiro dhalinyaro badan oo ku duceyso in soo wadanka degin waagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka waxaan rabnaa bal sidee dhibaatooyinkii shala dhacay ama dhibaatooyinka badi saameeya bulshada sida dhacdadii shalay oo kale ama dhacdooyin kale oo ka horeeyay oo inta badan markay Muqdisho wax ka dhacaan hadday ugu yartahay 10 qofood oo shacab ayaa wax ku noqoto waa markay ugu yartahay wax walba oo dhaco dadka shacabku waa ay saameeysan maxaa looga hortagi karaa dhibaatadaasi daawadayaal barnaamijka dhanka Facebook nagala qayb qaadanaya ayaa fikirkooda aan jeclaan lahaa marka hore inaan ku hormaro kadibna idinka ayna siiyo barnaamijkan waa soo gabagabayn doonaa qofka ugu horeeya waxa uu yiri magacaygu waa Ismaaciil Saxafi waxaan leeyahay waxa looga hortagi karaa ciidamada shisheeye in Muqdisho laga saaro siiba kuwa Imaaraadka ama hubka dhigis lagu sameeyo in saraakiil ama askarigii lagu helo wax musuq ah tiirka la horgeeyo Muqdisho laga joojiyo diyaaradaha qaadka waa fikirkiisa Ismaaciil Saxafi ayaa yiraahdaa wuxuu ka qayb qaadanaya barnaamijka dhanka Facebook Rashid Yusuf wuxuu dhaw waxay aniga ila tahay in Soomaalida dib ay isugu noqoto dhibaatadan waa mirihii qaladkii 1960kii la galay ilaa haddana daawo aan loo helin ama loo raadin ayuu yiri isweydiinta see maamul hoggaan iyo dawlad aan wada leenahay ay ka wada dambeeyno dareeno dhaqankeeda iyo dhuuxeeda ku helaynaa waa kee ayuu yiri hab dawladeedka ku haboon bulsho isir wadaag ah waxaan u maleynayaa asaga laftirkiisa Rashid Yusuf in markaas uu su'aal yani dadkii soo dhaxdhigayo uu leeyahay sidee dawlad wadaag aan ku heli karnaa waxa wuxuu yiri kala fogaanshaha burburka iyo dhiiga iyo dhaqan xumida waa ay sii soconayaan hadii aan yani dhibaatooyinka xal aan loo helin daawadayaal kale ayaa jira inkastoo daawadayaasha aan jeclaan lahaa postiga aan soo dhigay inay jawaabaha ku soo qoraan laakiin waxa jira dhalinyaro kale oo messengerka igu soo diraya fikirkooda laakiin gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay waqti uma sii heli doono ama uma sii heli karno inaan sii wadno oo aan qoraalada iyo messengerka lagu soo diraan si akhriyo ugu dambeyn waxaan siin lahaa fikirkiina ku aadan sidee dhibaatadan mar walba saameysa bulshada looga gudbi karaa Soomaaliya markaan ku hormaro Soomaaliya way farabadisay Soomaalidu waxay tiraahdaa maraqii ama gaarigii darwal bata ama maraqii
faraha ku bata wufuud xaraareeya Soomaaliya marba mar ka dambaysa marxalad cusub bay sameynaysay oo ay soo gashanaysay ay isku bedelaysay iyadoo loogu tala galay in tan taa lagu iloobo tii ka dambaysay in mid kale lagu iloobo dunida maanta aan joogno dalal badan baa waxaa jira siyaasadda dhibaatooyinka hadda Soomaaliya haysata dalal badan ay soo qabsatay iyo ka xun waliba ay soo qabsatay markaan tusaale ahaan ku soo qaato Rwanda waxa ka dhacay taariikhda waan ogsoonahay Malawi waxa ka dhacay waan ogsoonahay Malaysia waxa ka dhacay waan ogsoonahay dalkan hadda yar ee ma garanaysaa asagana waan ogsoonahay taa ay tahay waxaad ogaanaysaa inaysan shacabka u bacrisanayn inay diyaar u yihiin in ay dawladda la shaqeeyaan haday ayagu dawladda si sax ah oo xura ay ula shaqeyn lahaayeen way ka yaraan lahayd saameynta hadda dhacaysa iyo waxyaabaha dhacay sababtoo waxaad arkaysaa shacabka asaga laftirkiisa inuu soo marti gelinayo ama uu soo dhaweysanayo ninka makriga ku wada dalkana burburinaya dhibaatadaasna geysanaya inay ayagu laftirkooda ay diyaar u yihiin in ay soo dhaweystaan guriga ay ku qariyaan ay ku haystaan oo ay ku kaydiyaan sababtoo ninkan guriga ku nool yahay guriga wax ka cunaa bulshadu ku dhex nool yahay waxaan sameynaya dhibaatadan sameynaya gudbinayana bari hadaysan ayaga iska dhex qabanin marka oo aysan dhihin intay soo qabtaan aysan dhihin ninkan in adeerkood ba Allah ka dhigo waayo bari markii saameynta ay geysanaysa asaga in adeer ahaan kuma dhaafayo waa nin maandooriyeysan waa nin muqadaraysan nin haduuba mar bilaabay inuusan islaamnimada u nixin inuusan Soomaalinimada qabanin inuusan dhiiga qabanin ee dadka kuleynaya meesha heerka uu taagan yahay waa nin ma garanaysaa aan inta lahayn adigana inaad ka xishooto aad ku tixgeliso ama aad raali uga noqoto inuu gurigaaga joogo oo wax ka cuno ee aad ku qarisid ma aha mid sharaf ah saas darteed inay dawladdu u soo gudbiso haday arkayso markaas inay dawladda gacan ka qaban weyso ay banaanbax la yimaadaan ay dhahan annaga shacab aan nahay dalkan annaga ku nool dhibaatada annaga saameynaysa dadka dhibaatada nagu hay waa soo bandhignay cid wax ka qabanaysa male saas darteed hadaan wax ka qaban karinaha annaga madaxeena mushaarnaha ku qaadanaha qandaraasna ha ku soo abaabulinaha nooga baxa wixii dalka dan iyo danta dalka iyo dadka wixii dad u wado aan annagu ka dhiganayna waxay noqonaysaa markaas mid mowqifkeeda soo afjarmay ee meel gaar ah loo yeeshay laakiin marka aragtid in kan makriga wada inaad walaaleysatid inaad adeersatid guriga soo gashatid ee aad u aamusto barina saameynta adiga uu kugu geysto waayo markay saameynta tan oo kale ay dhacayso qof kale ma aha way ka wanaagsan tahay dagaaladii hore because of dagaaladii hore waxay ahayd in baabuur la dhaco in qof la dilo in qof la bartilmaameesto laakiin hadda inta markuu qaraxa ku dhaco goobta aan joogno dhan qof kama badbaadayo maadaama saa ay baasho ay ku dhacayso meesha tagaysid aad ku dhiman doontid Allah og xornimo wadankan uga loonaaw daqiiqada aad joogtid Allah ka cabsi ka geyso daqiiqada aad joogtid Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaaw daqiiqada aad joogtid wadankaaga wax ugu tag mahmaahay English ah jirto aan rabo inaan ku soo gabagabay waxay dhahaan to live to learn a legacy macnaha inaad noolaato waxay ku tusaysaa inaad wax barato waxay ku tusaysaa inaad bulshadaada iyo wadankaaga iyo dadkaaga uga tagto magac iyo sumcad maxay tahay inaad nolol geeri ka jeclaato because of nolol geeri marka ka jeclaato xornimo ku noolaanaysa Soomaaliya iyadoo intaan ka xun 13 dhalinyaro waxa la yiraahdaa baa horumarka soo gaarsiiyay maanta waxa joogo waa dad technology-ga aad ugu horumaray dad multimedia ugu horumaray dad waxbarashada ku horumaray diinta shalay sidii loo haysto maanta way ka darantaa saastas ay tahayna dhibaato mooyaane xal nooma soo kordhin marka waxaan dhihi lahaa aan Allah subhanahu wa ta'ala u noqono aan Allah mataqaanaa aan hal maalin siino inaan banaanka isugu soo wada baxno alla bari toos Ilaahay aan weydiisano dhibkii ka dhacay 1991 dalka ka dhacay ma garanaysaa culimadii lagu dilay dhiigoodii baa wali wadankan ka socdo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo laabto Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo bariyo culimadaasi inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala saameynta ay ka geysatay dalka ilaa iyo hadda ay ku deglaadahay inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu barino Ilaahayna dhibkan naga qabto waad mahadsantahay Sinaxariisleh waqtigan hayo Ibrahim anigu hadalkii waxaan ku soo koobayaa maadaama waqtiguna ku rayo waxaan dhihi lahaa shacabka dawladdu kaliya ma shaqeyn karto dawladduna shacabku kaliya ma shaqeyn karaan
waxaan dhihi lahaa shacabkani waa kii shalay soo dhaweeyay markii dowladdan dhalisay dunidu meelaysan Soomaaliya ka sameeyeen mataqaana dabaaldeg iyo soo dhaweyn ma jirto sidaan ka warhayno mataqaana inta dowladda doortay marka shalay hililaantii loo qabay dowladdan loo soo dhaweeyay waa in laga dhaweeyaa in dowladdan loola shaqeeyo ilaa xad dowladdu waxaan dhihi lahaa haddii ay helaan information oo shacabkooda ay ka helaan waa inay damaanad qaadaan amniga qofka shacabka keenay mataqaana arrinta ku aadan dadku qaswadayaasha waa in uu saaxiibka ah soo waxaan dhihi lahaa dowladdu xil ma iska taarto 100% inagu ma ahan inaan mataqaana fiirsana ciidan shisheeye ama mataqaana dakhli yar aan ka helno qolo shisheeye in qaar ka mid ah qolooyinka dowladda la shaqeeyahay ay mataqaana afduubsadaan misna mataqaana ay fiirsan danahoodaas yar ma aha dowladda iska weyn iska saartaa koo horto inay ka bilaabataa wax walba mataqaana asaaska baa laga bilaabay bar dowladda mataqaana iyadoo iska la shaandhis runta la isku sheegano Soomaaliya waa isnaqaana qof walba xafiis baa fadhiya waa nin Soomaaliya fadhiya ninkaaba waxaan ku kalsoonay qofkii shacabka shalay mataqaana u dabaaldegay marka waxaan dhihi lahaa wax walba mataqaana madax meel ka sareyso la salax majlisto waana dowladda inagu shacabaan nahay shacabkaasana waxaan ka warsugnahay jeer dowladdu waxaan dhihi lahaa horta hala timaado system wanaagsan ay ku dhaqleed wadanka wadan in muddo burbursan wadankan waa wadan Soomaaliya isku luqad oo isku diin oo isfahmay ayaa ku wada nool macnaheedu ma aha inaan wax qaybsan weyn wadamo baa jira mataqaana ku nool different mataqaana backgrounds dadka imaaday oo waliba sharci waxa kala haga nidaam taasna maxay keentay in dadkii wada noolaadaan barwaaqo ku wada noolaa sharci kala reebo marka waxaan dhihi lahaa dowladii mataqaana shalay ku imaatay maxay dhihi jiraa siga ruglaayinta ama mataqaana degdeg ku imaatay أنا هيسن متقنا الشرع أساسي ومدي كل روايانه ده وحندي لا إلا حد ويدي بدن تسيكو هكتو مركو حندي لا كفى ديست وقتها هيستان أسكير ولا إسكا أفر سنة وعشرين سنة وحنا عام في أنت دور شو كده عدونتو مركو إسكود ده إن الشعب كلسوني كهشان إلا واحد إلا حد ذن أيها إنسان information والبوم متقنا بد مركو حندي لا سوماليا وين الجماعة يسقف سنة شل ودن كنا متقنا جيل دليرو سيدح تونقف ببدي شيء إننا نحن آمن سنة وانا بدل دون إن شاء الله هنقول قاعد تكون نقدم بها هذا مسألة وانا بدل دون حد ما جماعة يسقفسنو دولتنا هنتاجرنا دولتنا إذا متقنا هنتاجرته السلام عليكم aad baad u mahadsantihiin Cabdiraxmaan iyo Ibraahim waa idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan aad barnaamijka igala qayb qaadateen aad baad mahadsantahay guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Sooyaalka Nolosha oo aad kala socoteen telefishinka RTN xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi waxaa caawa barnaamijka marti ugu ahaa Cabdiraxmaan Sinaxariisleh iyo Ibraahim Maxamed Socdaal oo labaduba markaasi kamid ah xisbiga dhalinyarada ee Taran barnaamijka waxay idinla socodsiinaysay anigoo intisaar Saal Xuseen dhanka farsamada iyo waliba kaamirada quruxda badan ee aad naga daawanayseen waxa inoo hagayay injineer Cabdixakiin Ilbuur iyo sidoo kale Silfiya intaan barnaamijka mid ku kulmi doono nabadgelyo halkani waa RTN